بسم الله الرحمن الرحيم سو dhawaad walaalayaal waxaa waay maanta waxaan idin barayaa insha Allah tacaala company sida looga furto UK okay marka video ku horeeyay ayaa waxaan ku soo sheegay inaa fahantid benefitka ku jiro faa'iidooyinka ku jiro iyo faa'iido darrada ku jirta company sida loo furto laakiin company hada UK ka furnaysa laakiin hada go'aansatay oo go'aan ka noqotay inaad company furatid marka waxa waaye waxaan tusinayaa sida loo furo company okay number 1 intaadan furin ka hor marka company waxa laga rabaa inaad go'aansatid company inaad rabtid inaad furatid go'aanka soo qaadato Soomaa diyaar markaa noqotay marka waxa laga rabaa inaad marka hore heshid magaca name-ki sidee markin oo sheeg name-ka ku soo helileed kaasna video gooniyan ku soo sameeyay oo name-ka waa haysanaa gacanta ku haysanaa okay video kala fiirsado asna sida loo name gareeyo company-ga now marka hadda waa furitaanka maruna okay maxaa sameeynaa marka number 1 waxaan sameeynaa company house inta waxaan ku qoraynaa company house yes magaca waa soo helna maqsuunta company house and register new company can you see that register new company gaas aad tagaysaa asun aad tagtid waxa ku soo baxay waxyaabo badan oo rabo inaan tusiyo ka ugu horeeya ad ku qoran oo madow ah in aragtay in kala maqaan adkaas madowga meesha uu qoran aan geeyay adkaas madowga ad ku qoran waa xayisiin marka ka leexo ka ku xog xayisiin iska soo gudub xayisiinta oo dhan ka soo gudub now come to government ku qoranta www.gov.uk ku qoranta ayaa tagaysaa okay kaliya siinaysaa now kaliya markaas siisid oo soo dhex gashid kadib waxa ku soo baxday register your company-ga marka registration-kiisaan joognaa okay there's different way to register for corporation tax okay ka gudub now okay set up a limited company step by step you see halkan set up a registered company step by step meeshaas kora taabanaysaa aan hadda kalik soo siiyay waa kan register or set up a limited company step by step kaasad kalik soo siinaysaa kaas markaa kalik soo siisid intaa imaanaysaa set up a limited company step by step you see intaa ku baraysa all of it inta kugu jirtaa step by step anigana waa idin tusinayaa insha Allah tacaala si ila socda marka now check if setting up a limited company is right for you okay marka hore waa inaad sheekaraysaa soo macnaheedu waa soo sheekaraynay inaad markano self employed tahay inaad business partnership tahay inaad social enterprise tahay inaad kagan waa soo sheekaraynay oo kaas video kale noogu jira ma fahmaysaa right inaad okay now name-ka soo choose karaysatay waa soo sheekaraynay name-ka waa soo choose karaysanay now marka aad imaatid sheeg magacii wixii dhan waa soo choose karaysay now waxaan joognaa inaad director-ka choose karaysatid okay so director-kii muxuu yahay director marka ya director-ka waxa waaye qofka company-ga madaxda ka ah oo company-ga xukuma oo company-ga mas'uulka ka ah oo company-ga responsible-ka ka ah oo maanta company-gaas wax soo gaaraan asiga la qabsanayo macnaha waxa waaye qofka ka shaqeeya company-ga u shaqeeya company-gana iska leh mas'uuliyadeeda leh lacagteeda leh hadhow wax walba company-gaas ka imaada leh ayaa la yiraahdaa director-ka so director-ka mas'uul ayuu ka yahay company-ga so marka waa director-ka go'aansanaa mujida find out what directors are responsible for maxay director-ku responsible ku yihiin maxaa macnaha laga rabaa you see lacagta you see taking money out of a limited company lacagta company-ga aad ka qaadanaysid ya mas'uula ka tahay ya company change you must report company waxa ku soo saacido changes inaad report garaysid sida address-ka inaad ka gurtido kala meeshii aad si u sheegtid company house u sheegtid oo kale waxa soo idil waxay ku sahlaysaa isha waxaad mas'uul ka tahay qofka director-ka ayaa mas'uul ka ah okay maaragtay accountant-ga director-ka mas'uulka ah confirmation statement waxa la jirto oo u baahan tahay sanad kasta inaad sameysid confirmation statement-gaas oo kale uma baahnin lacag ku bixisid waa simple waxa confirm garanaysaa name-kaadi waxa confirm garanaysaa gooni aan kugu sameey doona confirmation statement-ga soo loo haysto waxa sameynaysaa waxa mas'uul ka tahay wax kasta oo company-gaas ku yimaado oo la saxiixay waxyaabahaas oo dhan adaa mas'uul ka ah ma fahamtay company-ga director-ka marka waxyaabo mas'uul ka yahay waa kasaha waxyaabo badan oo mas'uul ka yahay okay as a director waa inaa macta sharciga follow garaysaa waa inaa artikalada follow galeynaysa aad taqaanid wax weyn ma aha wax weyn aan u maleynina macnaha cabsanina laakiin waxaan rabaa inaa is ilaalisid fahmaysaa Eric waxaa mas'uul ka tahay inaad artikalada ilaalisid waxaa mas'uul ka tahay inaad company-ga record-kiisa
wax walbo kambaniga soo galo iyo wixii ka baxo kambaniga inay ku report garaysan yihiin oo meel aa ku qortid laga rabaa spreadsheet intaa samaysatid laba dhinac ku qortid income intaana soo gashay out intaana ka baxday taas waayadan kambaniga lacagta uu sameeyo iyo lacagta adiga samaysa isku qasi karin lacagta adiga samaysid gooniyi ku taa okay kambaniga marka lacag sameeyo lacagtaas ada soo beegarinaysa account kale adiga leedahay shaqsiyan kaasaad ku soo shubaysaa lacagta kambaniga lacagtiisa accountkiisa kaga soo shubaysaa marka kaas adiga xaq u leedahay isticmaali kartaa laakiin tan kambaniga saarto isticmaali kartid inta baxday cash kama soo baxsan kartid no wax kasta aad diraysid waa inaan kambaniga dhexdiisa ka dirtaa markaad diraysidna waa in dadka u diraysid ay helaan ma fahamtay oo toos yihiin marka hadhowdii oo kale waa idin tusinaya insha Allah taala ona bank statementiga soo qaadaysa bank statementigaas ayaa waxaad ka isticmaalaya inta soo dhigatid inkii iyo outkii wixii dhan ka sameynaysaa accounts waxa dhaca jiro oo adiga inaad diyaarsid laga rabo oo spreadsheet aad diyaarsanaysid now marka intaas waxaa laga rabaa marka inaad maaragtay confirmation statementiga samaysid sida hadda meesha ku aragnay inaad tax returnkiisa adaa mas'uul ka ah corporation taxigiisa adaa mas'uul ka ah you can hire other people oo ku manage gareeyo sax dad kala qaadan kartaa oo ku manage gareeyo sida accountantiga oo kale waxyaabahaas laakiin waxyaabo waxa jira symbol oo fara badan anaga sameyn karno laakiin accountantigu lacag fara badan kaaga cunaya hadda kahor confirmation statementigaas aniga waxaa laga qaatay £200 it takes 5 minutes waa tik inaad siisid 5 minutes wax qaadanayo waxaa laga qaatay 200 oo pound ma fahmaysin confirmation statement marka saas waa tarteed waxaan in kugu sameynayo videoshan si ugu faa'iideen insha Allah taala waxa ilaahay ay baray insha Allah now waxa u maatay marka taas wuxuu ahaa directorkii soo ma directorkii now waxa sameynaysaa marka directorka waa kasa waxaa jiro waxa la dhaho marka shareholders ayagana shareholders la dhahaa okay shareholdersku waa dadka kula leh kambaniga soo shares siinaysa waa maqshan shares waa taqaan Soomaali share xaq kaga jira share inta kaga jira share melebla kaga jira marka sharekaas ayaa siinaysa soo shareka hadaadan qof kale kugu jirno kambaniga adiga director ka tahay shareholderkan adaa wada leh ma fahamtay shareholderkan adaa leh 100% adaa leh 50% aad sii kartaa 5% aad sii kartaa 25% aad sii kartaa ma fahamtay 75% so 100% adaa iska leh waa marka shareka okay now waxa kale jira dad la dhaho significant people of significant people على identify people with significant control people kaas waxa waaye علشان dadka mas'uulka ka ah kambaniga asna oo aad mas'uul fiican siinay sidoo kale taas waxa waaye adiga meesha iskilinaysi meeshaasna ma fahmaysaa now aakhirkii kambaniga ayaa waxaad ku prepare garanayo documentationkii and then you run or you prepare how you are going to run the company sida kambaniga u shaqeyn macnaha ugu shaqeyn doonta ayaa ka shaqeynaya aad sheegay macna meesha kugu qoranta oo adigu tigtiga siinaysa okay kadib waa inaad markino record garaysaa you see maxaa record garanay check what records you will need to keep maxaad u baahan tahay inaad keep garaysid okay so kanoo kale waxa waaye accounts record you must keep waa inaad keep garaysaa accounts inaad keep garaysid sida laga rabaa oo aad wixii soo galay kambaniga iyo wixii ka baxayba receiptkii waxa wax ku soo gaday waxa soo gatay everything in adiga macna keep garaysid la rabaa oodan ka dhiganin personal amal sidii markaad anaada dhowr kambaniyan bilaabay dhowr kambaniyan dad u furay maaragtay sheeg wax kasto marka aniga bilaabay laakiin isku qasi jir wax kasto lacagteedan u isticmaalaa kambaniga lacagteeda xataa kambaniga marka u isticmaalayso u isticmaali kartaa kambanigaada inaad ka xisaabta laakiin lacagtaas u isticmaalayso xataa waxa laga rabaa inaad meel gooni ku record garaysid oo tiraahdo director's money directorka ayaa iska leh lacagtan ma fahmi director's money this is director's money directorka ayaa lacagtan iska leh okay so this is step by step intaas waay wax laga rabo company markaa furanaysid so maxaan dhahnay kow namekana soo heshid nameka soo heshay labo waa inaad directorkii aad tahay isheeg maxay ahayd directorkana go'aansatid which is you adiga directorkii kadib waxaa laga rabaa shareholders inaad go'aansatid way ku weydiinayaan shareholder ma haysataa haa waan haystaa waa tan adiga magacaada ku qoraysaa dadka significant of controlka weynka leh oo macnaha mas'uuliyad weyn lehne waa adiga meesha aad isku qoraysid okay kadib waxaad prepare garanaysaa sida u rangareyn lahayd kambaniga waxa ku weydiinaya su'aal kambaniga maxaa u rangareyn doontaa sidee rabtaan uu kambaniga u shaqeeyo ma fahamtay ku weydiinayaan so then waa sameynaysaa taasna now
marka taas samaysid kadib waxaa ku imaanaysaa recordadii kuu soo qoreen meeshaan kadib register company. So now we're gonna go to register company. Marka waa inaa rules ka check garaysaa ku leeyihiin check the rules for company addresses ka kusoo hara marka companyga markaa company ku qoraysid oo adresska aad ku qoraysid meesha ku qoraysid kasoo qaado kale gurigaada ku qoranaysaa guriga markaa ku qoranaysid sidoo kale waxaa samayn kartaa guriga adresskiisa kugu qoraya laakiin adres kale oo qarsoon ayaa kor ku qoraysaa marka badanaa waxaa la sameeyaa adresyo central London kaasna video gooni aan kaga sameeyay oo formation la dhaho companies marka videogaas waxaa fiirsada asigana marka waxaa sameynaysaa company ku yaalo central London oo kale ayaa ka gadanaysaa 60 baan sanadkii oo dhan adreska markaa ka gadatid ama account